عبد الفتاح مدحونها بنتلان سعيد عبد الله الدني ورئيس جارسي لانتا أفكا سوماليجا بي بي سي دا أي waxa uu sheegay inaanay war u hayn shirka berrito la sheegay inuu ka furmayo tendho ku taala garoonka ciidamada cirka afisyooni ee magaalada muqdisho kaasoo looga hadlayo khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya isla markaana habeen ka hor uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo ku dhawaaqay madaxweyne Dani ayaa ku adkaystay in khilaafka doorashada ka taagan ka hor laga hadlo arrinta ciidamada oo uu sheegay inay si gaar ah u isticmaalayaan waa sida uu hadalka u dhigay madaxda dawladda federaalka uu ku eedeeyay xalay ilaa saaka inay ciidamo dheeraad soo dhoobeen aaga uu ku yaalo garoonka aadan cabdulle oo ay iyagu degan yihiin madaxweyne Dani ayaan goor sii horeysay waraysi la yeeshay waxaana markii hore weydiiyay bal waxa uu qabsoomay intii uu muqdisho joogay وما صنعها BBC مدري عن هالكتيرلي طبعا وحأمنيت مرتقات عن كهلي إيش عالم تجارهان جيمس وان ينمطو وآد بريعة هو وشنا سيدي أرمها مرسل ورشوا المسؤول الدونا كثير مركي وقت جيسلاتي إذا بسوريا دولة الصومالية تماثل سيدي لسوكين معيبة كردون أرمها الصومالية خصوصا أرمها زمان كنت جبني مدري عن جبني وضع الله يعني لما يجي يضبط مدح الصوماليات من مدحدي هوري حتى كل ليسون ولها مشرحينك iyo مسؤولين كلامتو سياسيين أو إنتو طبعا على الله نكتشف المدرسة قرن بالدولة والمعاد والواقع أنا أقول لي سنة هالكوان جبنا مع طريقة هاي نقول عن جبني بنع حكومة بحين إدنا جلسوا حريفتي أما إد لجلا هذا الشيء مجرد الحين هم كانوا يجين تنبيار واحد مع شهرنا madaxweyne habeen ka hor madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo wuxuu ku dhawaaqay shir madaxda dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dhexmari doona oo arrimaha doorashooyinka looga hadlayo shirkaas ma lidii ku casuumay mise ka qayb galaysaan والله بروح بالشدة كوارثي بروح بالشدة كوارثي وقد ما نشتري كسب بعد اللي يجري لكن قدر رسميا أنا ما أعرف أرمها هل كانوا يمنا جدا بيستدي فترة أرمها صومالي حملت يا بالشدة كما طبعا يمكن يكون رئيسي وقد كسبوا صار شوية مصورات وانتو تري حمر انت بدنا اللي نجري لبوها الروح حقيقة بتعطوها وكان هو كتوان تهي وتنكو كجرا مرحلة أبك وباقا إلا السنة التسعية يرى هنتي نوية بدنين هاي وعن إلا كان مغنين إن ورميش في شوية معه وما دام الضرق وقالي فراق السورية نغير عبد السنة محمد أسلوه بكتلها مركا يوانا وقتي إذا نسوي ما نضرك shirka berrito furmaya oo wasiirka warfaafintu shalay sheegay in afisyoone uu ka dhici doono ma ka qayb gali doontaan shirka berri furmaya ilaa iyo hadda anaga wax rasmi ah oo aan ognahay oo ka qayb galayno hadda aan halka u fadhino ma jirto waxaa intaa ka daran maxaaba shir laga qayb galaa meeshii aan maleynayna inay aamin tahay oo amisom ay jiraamaanka anaga sugan oo noogu yeeray ayaana lagu soo weeraray oo xalay afarta dhinac ciidamo laga dhigay ciidamadaas runtii waxaan u fasiranay inay nimankii kun sagaal iyo tobankii february ka dhacay maa'ida iyo airportka dadkii sidoo mudaharaadii lagu qaaday marka kullii dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo ciidamaysan oo meel walba ciidan la geynayo waxaan rabaa inaa caalamka iyo beesha caalamka iyo bulshada soomaaliyeed u cadeeyo in dalku khatar ku jiro oo u baahan yahay sabata bixin oo loo baahan yahay in loo istaago waayo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday waxaa moodaa in caqligii militariga waagii wadanka ka tegay ku jiray inuu hadda uu artigaraynayo dalkan haddii ciidamadu dad gaara ay ciidamadu si ciidan gaara ay yeeshaan haddii dalku waa wada ciidamaysan yahay dadku waa wada hugaysan yahay khatar amni waana adhici doonta marka waxaan ka digayaa in ciidamada qaranka arrimo siyaasadeed oo gaara loo isticmaalo arrintaas khatar weyn baa ka muuqata shir badweesh kama muuqdo waxaa ka horeysa horta security-ga iyo sida ciidamada Soomaaliya loo maamulayo in meel isla dhigo sharciyada dawladda meel isla dhigo markaasaa doorasho laga hadlo xilli hadda doorasho laga hadla lama joogo 19 February wixii dalka ka dhacay bedel weyn bay dhacday taasna waa midda dhashay badbaado qaran annagu halkaas ayaa khadka mid yahay in dalkan aan badbaadino awalna waa ku joognay haddana waa usii joogi doonaa kaalinta ay nagaga aadan tahay inaan dalkan ka sabata bixino inay dib ugu noqon wixii qaraaraa ay soo martay oo kala laabsaha ayaan hadda ka shaqaynaynaa waana rajeynayna inaan ku guulaysano annaga madaxweyne goordhaweyd mar uu hadlay taliyaha booliska Soomaaliya General Xijaar wuxuu sheegay in wax ciidamo dheeraad ah oo la geeyay agagaarka gegida diyaaradaha aadan cabdulle aanay jirin hore ciidankii booliska uu joogi jiray ay joogaan marka warkan xagee ka keenteen adigu in ciidamo dheeraad ah aagiina la keenay
والله dadka Soomaalida way jibaa ciidamada qarsoomo kale hajaar wixii la amray ku fulnaa inta wax ka dhigay maayo laakiin ciidanka airport jooga tan iyo maalintii gacanta dowladda ku soo noqotay airport laanta turkiga ayaa u joogtay oo la yaqaan marka gobol banaadir iyo Soomaaliya waan hooskii hadda ciidanku waa ogtahay waxa dhacay ciidamada xaliyin lagu walba ogyahay saacad waxa ay wax ka qabanayaan inay ku fakeraan iyagoo xilkooda dhammaada inay sameeyaan tallaabooyinka noocaas ayaa muujinaya dadaan doorasho u socdayeen haddii dalka meesha u wadaan dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno waa muhiim madaxweyne gudiyadii farsamada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku baydhabo ay Febraayo bartamaheedii heshiis ku gaareen arrimihii saddexda ahaa ee ka soo laabtay 17 Sebtembar heshiiskii la gaaray idinku waxaad ku celcelinaysaan hadda 19 Febraayo wax dhaceen oo ka dambeysay marka cidda wax adkaynaysa ee aan rabin in doorasho dhacdo soo lama oran karo madaxweyne waa idinka oo aan hadda diyaar u ahayn in heshiisyadii hore loo gaaray la fuliyo baydhabo heshiiska uga gaarin farsamadu waxay soo jeedin bay sameeyeen inay xal u helaan arrimaha kirnaa ugu miisan waxay maalmihii u dambeeyey iyadoo ciidamada lagu gaabulay marka wixii ay soo sheegeen wax ka naasacadaaday nabadii iyo horumarkii ay ka shaqaynayeen 19 bisha 19 halka waxaa ka dhacay dagaal lagu qaaday madaxdii hore Soomaaliya hadda aan ku joogo magaalada Muqdisho aan joogo ilaa xalay meel walba ciidan baa la soo dhigay oo loogu talagalay in xalada lagu soo weeraro waxaasoo dhan ciidan walba ujeeda marka aan waxaan oran lahaa caqligu waa soo noqdo beesha caalamka waxaan rabaa inaysan hareer barin Soomaaliya doorashada waxaa ka muhiimsan sharciyadeeda in la ilaaliyo dowladnimadeeda madaxweynuhu xilkiisa waa dhammaaday mana isticmaali karo ciidanka dowladda inuu hadda meeshuu rabo u dhigo arrimahaas waa in meel la dhigaa hadda anaga doorasho saa loo dhaqmayaa iyadoo doorasho ku yimaadeen see la yeeli jiraa marka dhaqankii hore loo bartay oo hadda meel horena ka dhacay in doorashada uu xoog ku doodo haddii uu ku fakerayo aniga ay la tahay Soomaali halka aqoonteeda ku jirto dantu waxay ku jirtaa dadka Soomaaliyeed in xaqiiqada wajahaan